warbixinadaasi ma muujinayn in halka ay ka yimaadeen lambaradan, laakiin ururada saxaafadda ayaa sheegay inay xaqiijiyeen in ka badan 1,000 qof oo ku nool in ka badan 50 dal. warbixinada waxaa lagu ogaaday in tiro badan laga soo ururiyay 10 waddan oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Morocco iyo Bahrain. markii ay ururadii baaritaanka wada isku dayeen inay la xiriiraan saraakiisha waddamadaas, hase ahaatee saraakiisha ayaa gebi ahaanba is-hortaagtay arrimaha barnaamijka Pegasus. sida laga soo xigtay warbixinada liistada la xusay, waxaa ku jira ilaa 180 saxafi oo ka socda ururo badan oo ay ku jiraan wakaaladda Faransiiska Press, CNN, The New York Times, Al Jazeera iyo ururo kale oo warbaahineed. liiska waxaa sidoo kale ku jira madaxda dowladaha, xubno ka tirsan qoysaska boqortooyada Carabta iyo howlwadeennada shirkadaha ganacsiga. sidoo kale liiska waxaa ku jira 2 haween ah oo aad ugu dhowaa saxafigii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda dalkiisa ee Istanbul bishii Oktoobar 2018. Khadija Cengiz oo ay u doonanayd saxafiga Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi ayaa la bartilmaameedsaday maalmo kadib dilkiisa, sida ay wararku sheegayaan. baaritaanada ayaa lagu ogaaday in basaasiin ay bartilmaameedsadeen taleefanka gabadha ay u doonan tahay Khashoggi maalmo kadib dilkiisa, iyo in sidoo kale taleefanka xaaskiisa lagu bartilmaameedsaday barnaamijka basaasnimada intii u dhaxaysay Sebtembar 2017 ilaa 2018. NSO ayaa beenisay wax xiriir ah haba yaraatee ee dilka foosha xun. daawade, si aad ula socto qeybaha dambe barnaamijkan, fadlan subscribe sar, sidoo kale asxaabtaadana la sii wadaag.